بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، ضمان وجهرين رئيس الوالديه هو سوماليا مدن محمد عبد يوسف labada gole ee xildhibaanada qaranka iyo Herer State dhamaan musharaxa maxamed cabdulaahi maxamed aadan salaamullah, gabdhaha sharafta leh, saxaafadda, aqoon-yahanada iyo saraakiisha meesha fadhida dhamaan waxaan idinku salaamayaa iyo dhaqanka meesha fadhiya salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaan, Allah subxaanahu wa tacaala ayay mahad u sugnaatay ee halkan annagoo Soomaaliya oo islaam ah sukaaye keenay. Alxamdulillaah thumma alxamdulillaah. intaa kadib waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa walaalkay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah, musharax madaxweyne. walaal waxaan leeyahay aqoontaadii, khibraddaadii ayaa dalka ku hogaamin doontaa insha Allah bidnillaahi alkariim. annaguna waa ku garab taaganahay, aad iyo aad ayaan kuu soo dhaweynaynaa. inta aan ka xasuusto salaamullah waa nin qaran, waa nin aad iyo aad aqoonta Soomaaliya dhex taalo wax badan ka soo shaqeeyay ee soo saaray professor, engineer, dhakhtar, intaba soo saaro wax badan u soo shaqeeyay waxbarashada Soomaaliya kaalin weyn ka gaaray. cabdulaahi waa qurbajoog Soomaaliyeed oo u istaagay inuu mar walba ururiyo ummadda Soomaaliyeed ee daafaha kala duwan ee adduunyada isu ururiyo. wuxuu ka gaaray inuu noqdo madaxa qurbajoogta Soomaaliyeed. nin kasta ma noqon karo, waa nin u dhisan, u istaagay inuu ururiyo ummadda Soomaaliyeed ee qurbaha ku kala fatahday si ay isu ogaadaan mar walba. cabdulaahi waa kaaga mahad celinaynaa wixii aad hore u soo qabatay ee shaqo ah ee ku aadan ummadda Soomaaliyeed ee iyadu culaysyada badan ay qabteen. إن شاء الله ورجينا يا بروفيسور cabdulaahi maxamed aadan inuu samata bixin doono dadkan meel walba culayska ka haysto oo meel ay ku nabad galaan la. إن شاء الله بإذن الله الكريم waxaan baaq u jeedinayaa إن شاء الله haddii alla idmo baarlamaanada aan soo xuli doono xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed haddii ay yihiin qaybta aqalka sare iyo qaybta hoose in ay arkaan, fiiriyaan, dib u eegaan madaxweynaha ay soo saari doonaan. idinkuna waxaan idin leeyahay haddii alla idinku guuleeyo cid walba tegi mayso oo dhammaan Soomaaliyo idil noqon mayso xildhibaan. intii ilaahay u calfo oo ilaahay ku guuleeyo oo dadkooda ka soo dhaxbaxa in ay ogaadaan yaa samata bixin kara inay yiraahdaan. waxaan idin leeyahay walaalayaal, waxaa samata bixin kara professor cabdulaahi maxamed aadan salaamullah. waxaan leeyahay soo dhawow Soomaaliya. waxaan idinka sugaynaa waa inaad garab istaagtaan. waa aqoon-yahan hufan oo dhinac walba ka dhisan oo aad iyo aad aan ugu qanacsanahay inuu wax ka qaban doono dalka Soomaaliya. walaalayaal waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.